ديار مسي ديار مسي بلا افتح ديار كسوري ما تنوي عيارته ayaan halkan martay ka soo sababtoo maalintii hore uu baran loo qabtay ciyaartooy kamid ah ciyaartooyda gobolka Hawd ayuu si bareer oo toos loo wada arkayo isii ka dhacsaana isagoo aan ciyaartooyga aan u diin maanta ay noqotay saaka salaadii waxaan la hadlay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaan la hadlay madaxa garsoorka qadar jiran kaasoo aan u sheegay inaan loo qabanayn garsoorkan Kenyaatiga kaasoo aad ogtihiin inuu mar walba yahay garsoor iska adagoo runtii cid uu ku foorsan karo kaasoo aad ogtihiin dhamaantiinba in garsoor u qalmin waayo waaqaca ka jira dalkeena sababtoo ah dee lagala fahmay maanta saaka salaadii waan la hadlay waan sheegay waxaan ku yiri garsoorka han laga daayo labadayada gobolba uu daran yahay waan la hadlay shil ID iyo khadar shilaalba waxay si bareer oo toos u yiraahdeen laga bedeli maayo cadfitaaxo saacad baan la hadlayay waxaan ku yiri garsoorka han laga bedelo isu kaaya diraya waxa laga yaabaa ciyaartaas inay maanta ay noqoto ciyaar khalkhal gelin karta wadanka waxa laga bedeli maayo sababtoo ah anigu waxaan u arkayay in laga bareeray oo la doonayay gobolka sidii uu harin lahaa runtii anigu aad iyo aad baan uga soo horjeeday maanta inuu qabto garsoor wacdiinteedana waan hayaa maanta waad ogtihiin garoonka waxa ka dhacay rikoorahaas oo aad ogtihiin badanaaba inuu siroolo iyo calooduhu ay kaashadaan kooga diidaya runtii markii aan nidhi annaga deegaanka gobolka Hawd ahaaneed dhammaan soo dirin garoonka waxaan nidhi faartaan oo la weligeed ma dhicin garsoore inta faar soo eega kan soo noqo oo go'aankiisa ku saadkay runtii waxaan arkaynay in bareerkaas loo geystay cadaan taasoo aan imika hayno addibaheed dhanka kale waxaan sheegayaa waxaan ka sheegayaa taliyaha ciidanka booliiska in maanta sidii ay booliiska u keeneen garoonka Hargeysa islaami inaa weligeed loo keenin sababtoo ah waad arkayseen dhaleecan caadi ay ahayd oo la leeyahay gobolka Hawd ha loola dhaqmo si aan gobolada kale loola dhaqmin sababtoo ah waxaad arkayseen waxa ciidan wadanka jooga oo la iskugu keenay taasoo caawa ay dhacday in maatidii iyo ciyaalkii guryaha joogay qaarkood xabadii ay ugu dhacaan gobolada darteed iyadoo aan laga tashan oo aan la odhan sababtoo ah horena waanu sheegno waxaan idhi war amniga annaga hayna war amni ilaahay baa hayo ciyaartooyada gobolka Hawd waxay soo bandhigeen maanta waad arkayseen in kasta waad arkayseen si qurux badan ay ciyaareen waxaan maanta halkan ka dhaleecaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sidaa horta qaldan ay noola dhaqantay garsooraha ajnabiga ay noogu dhiibtay ee aan cidna fahmin wadankeena aan la iska fahmin runtii aan waxaan arkay inta la leeyahay gobolka Hawd maanta ha haran sababtoo ah waad arkayseen sida askarta looga soo bixiyay Hargeysa Stadium waxaan ku soo gudbiyay anigu waxaan ka tababar ahaaneed waxaan leeyahay waxaan haystaa caddeyn rasmi saytaasoo ah in goolahaasi soo baxay haddii aanu soo bixin oo la wada arko waan ku qanacay laakiin haddii kale kuma qanacayo siina socon maayo gool ciyaarahan saas ka baxay salaamu calaykum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلامتين بها صحافة maanta ciyaartii ka dhacday garoonka Hargeysa Stadium waxay ahayd ciyaar wada arkayay oo kulay de live-ka ummadda reer Somaliland ay ka hadlaysayba ciyaarta ka hor ciyaartan waxa lagu xeeray duruufo gaar ah oo aanay lahayn jirin ciyaarihii hore ee Somaliland ka dhacay ama tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland ka dhacay ciyaarta waxa la yiri ciyaartan waxa weeyaan waa semi final ciyaartani way ahayd oo magaceedu semi final buu ahaa laakiinse ma waxay ahayd markii koowaad ee team harayo imise gobol oo hore oo ayaa soo haray ilaa haddii la doonayo in xaaladda ammaanka la adkeeyo ama xaaladda nabadgelyada Somaliland la adkeeyo imise gobol oo hore ayaa soo haray oo maxaa la dhahayay ciyaarahooda ay final ahaayeen maanta ciyaareen maxaa maalmahaasi waxan oo ciidana iyo waxan oo maxaa la kicin dadweyne loo keenay wax kale iska daayay xataa
halku maxaa dhahay taageera fadhiisto hal askari ayaa dhinac fadhiyay sa tviyada laga wada arkayay maxaa dhahay facebookada iyo meelahan kale baraha bulshada wada taala maanta askartii garoonka joogtay iyo dadkii maxaa dhahay ciyaarta daawanayay way isleekaayeen saa la wada arkayay ama maxaa dhahay waana taas mid tilmaamaysay in marka horeba loogu talagalay in ciyaartan xamaasadeeda la kiciyo kaas waa qodobka labaad goolkii maxaa dhahay maanta gool kulaaga markii la laagayay goolkaygii shanaad markii aan laaganaynay ayaa waxa soo booday maxaa dhahay ninkii gooladaha intii aan kubadda la laagin xilliga sharciga FIFA iyo sharciga kubadda cagta wuxuu tilmaamayaa inta aanay gool ciyaartoyga lugtiisa kubadda ka soo bixin haddii gooluhu ka soo horboodo that means waxa weeyaan in gooladahaasi yellow card yeelanayo rikoodhahana lagu soo celinayo taas waxa markiiba ka markhaati furay calawadihii dhinaca taagnaa wada arkaysa ninka calawadaha ee dhinaca taagan birta markiiba wuxuu leeyahay maaha oo maxaa la dhahay wuxuu tilmaamayaa inaanu saxayn gool kulaagaasi intaa kadib siirudi baa ku adkaystay inuu noqdo waa gool markii koowaadba siirudi wuxuu kusii adkaystay inuu dhaha waa gool marka waxaanu dalbanay faar waxaa soo dhex galay jam fara badan oo maxaa la dhahay xamaasadda shucuurteeda watay faar baa lasoo eegay faartii uu tegey marka faartii tegay uu soo arkay dee faartu maaha meel wax ka cusub oo meesha u yaalay maaha waa waxaan idinku weydi hor yaalla baraha bulshada ka arkaysaan inaanu goolka uu gooladahaasi soo boodayo inta aanay lugta kubaddu goolhayaha intaanay lugta kubaddu aanay kasoo bixin ciyaartoyga laagay intaa laagay wada arkaysaa faartu noo soo eegay dee waa taa aad arkaysaan haddana waa kaas wuxuu ku adkaystay go-aankiisii ahaa maxaa la dhahdaayey waa kubaddaasi waa maaha gool oo waa la qabtay isagoo soo eegay faartaa idinku waad aragteen qodobka saddexaad doonayaan kusoo gabagabeeyo waxa weeyaan ninkan sirudaa ah ninkiisa waa laga hadlay wuxuu noo hayay annaga ciyaartii baran ee benetiska iyaduna hore ugu soo dhamaatay ninkaasi waxa uu naga galay khaladaad waadixa oo kaleer ah maanta somaliland waxaa joogaa 10 garsoore oo maxaa la dhahaa khibradeedii iyo aqoonteediiba loo somalilandara ayaa jooga sabab maanta ciyaaraha hawd loogu soo beego tababare maxaa la dhahaa aan somaliland ba aanu dhalan oo maxaa la dhahdaa wadan kale laga keenay maxaa ay tahay garsoore loogu soo beego somaliland baanu dhalan sababta loogu soo beegay maxay tahay laba ciyaarood hawd ayuu hayay sababta uu haynaya maxay tahay maanta ciyaartan ka horeysay buu noo hayay haddana maxaa ciyaartan nagu soo celiyey mar labaadna loogu dhiibay in tababarahaasi in garsoorahaasi la idhaahdo haddana isagaa haynaya haddana beelaala markhaatigiisi fogeeyaa wasaarad baanu la hadalnay waxaanu geynay dacwad ah inaanu garsoorahaas aanaan ku kalsoonayn bal niman nin aad leedahay oo hebelow noo garqaadi maayo oo garqaadkiisa kuma kalsoonin nin la leeyahay haddana uu kuusii haynaya bal ka waran waxaaban leenahay ninkaas garsoorkiisa iyo dhexdhexaadnimadiisaba waanu daadifaynaba ninaad daadifaysay ayaa haddanana lagu qasbay inuu hayo ciyaarta maanta waad arkaysan inta khalad ee uu ciyaarta gudaheeda ka qabtay ee badheerka ah ee maxaa la dhahay haddii maanta la wada daawado aan hawsheedana ku jirna saan u diyaarin lahayn inta khalad ee badheera ee uu naga galay maxaa la dhahay garsooraha maanta ciyaarta dhexdhexaadinayay annagu waxaan aaminsanahay in maxaa la dhahay reebitaankan gobolka hawd loogu talagalay maanta in la reebo laakiin annagu ma nihin niman saa ku hadhaya ee waxaan nahay niman sharciyadda ku hadhaya ayaanu nahay sharciga ayaanu la tiigsanaynaa maxaa la dhahay garsoorahaasi sharciga ayaanu la tiigsanaynaa maxaa la dhahay cid kasta oo lug ku lahaydba inay maanta saa u diido hadday noqoto iyaga iyo hadday noqoto nimankii maxaa la dhahay faarta fadhiyey maxaa la dhahay sirudahaasi tusi kari waayey amaba ku qancin kari waayey dee meelo fara badan baa faarta laga eega bidix iyo midig markay doonaysa inaad qofka sawirkiisa aad tusto saxdaa meesha yaalla marka anu waxaan u arkaynay maanta wixii habihii badnaa meesha ka dhacay inay ahayn taa waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in maanta ay xabadi garoonka ka dhacdo wadooda ogeedeen shalay waanu ka hadalnay doraadna waanu ka hadalnay waxaanu ka hadlaynay mar walba inay hawd iyo daadmeedheed laba gobol oo walaalaa yihiin haddii gobolka daadmeedheed si sharciya nooga guulaysto waa walaalahayo waa lagu hambalyaynaynaa waa ciyaartooydeedii waa saaxiibadayo hambalyo 100% ayaan u diraynaa haddii sharciyadda uu nagaga guulaysto sharciya nooga guulaysto laakiin haddii marka horeba la lahaa hawd far baa ku godeen bal waad la arki doontaana ciyaarta soo socotee maroodi jeex iyo maxaa la dhahay gabil ay wada ciyaarayaan waa ciyaar iyaduba sima final ah bal in intaasoo ciidano Somaliland ka timid ay isku timaado iyo in hawd u bartilmaameed laga dhiganayo waa la arki doonaa ciyaartooygu markuu arko iyo taageeruhu markuu arko waxa askarta ka fara badan laba askartii Somaliland joogtayba ka fara badan leh shucuurtiisu way kacaysaa dareenkiisuna waa kacaya ciyaartooydu maanta waxay ku sigteen inay wada casaan qaataan sababtuna waxa weeyaan culayska fara badan ee maanta la saaray ee maxaa la dhahay hadina
idin meeyey 12 duhurnimo la keenay garoonka si maxaa la leeyahay anaga hadii culeyskeeda gaarkeena la siisanay maanta dacwadaasaan gudbinay dacwadda natiijadeeda waan sugaynaa waxaan baaq halkan uga diraynaa dhammaan shacbiga reer Somaliland gaar ahaan reer Geesa gaar ahaan reer Axmed Dagax garoonka Hargeysa maanta ku dhex yaalay taageerayaasha gobolka waxaan leenahay mar walba ammaankiina idinku ilaashada ammaankiina maxaa la dhahdaa anagu waxaan u arkaynaa in ammaankiina la doonayo in la ka carqaladeeyo ammaankiina ilaashada ciyaartan maxaa la dhahdaa gobolka Hawd ciyaaraya iyo kubadda cagta iyadu waa kubad waana la inaga badin karaa waana badin karnaa laakiin ninka dagaalamaya doonaya inuu ku dagaalamo anaga maaha anagana naga mid maaha nin waliba maxaa la sharciyada ha sugo intay bal natiijada ay soo saarayso wasaaradda dhalinyarada ciyaaro natiijadaas markay soo baxdana taas aan ka hadlaynaa hadii la ku qanacsantiin natiijadaas markay soo baxdo natiijadaas ha waan ku qancina si sharci ah hadii loo qanciyo mar walba waan ku qancina dacwad baan gudbinay dacwadii aan gudbinayna maxaa la waxaan u gudbinay guddiga maxaa la leeyahay khilaafaadka iyo anshax ayaan u gudbinay wixii ka soo baxa weliba dee wax weeyaan wixii waa wax maanta duuban xasan oo wax duuban oo maxaa la leeyahay sawirkeeda yaalo ma fahanti wixii la tusay aragtidaada lagu tuso la raawata waanu ku khasbanahay waanu hambalyeynaa dad mareen waanu ka shaqeynaa waliba sidii ciyaaraha gobolka Soomaaliland si sharaf iyo karaamo leh ay ugu dhamaan lahayn laakiin inta la doonayo maxaa la in Hawd si gaar ah loo reebo ama Hawd bartilmaameed laga dhigto ma noqon doonto mid aan la oran doono inta kamarada lagu soo jeediyo haddana la yiraahdo ka cadhaysiya ha hadlaan waa kuwa kamarada way ku jeedaa maanta kamaradii taa mar labaad anagu ma aqbali doono aad iyo aad u maasantii waxaan ku soo وكل وكور هيسان يبطلي يبكي مالته درون كيسان يسكن على وكور هيسان ما دام أنا كترسل مساعدة للعيال عيالهم هاي يسوي يجوا الكهول وعن هالك كعضينا يا إن مالته هو شاكر على درون كيستادر الرئيسة هنا يتهاي مد أنا كده عالم النسوان اللي أنا كدعين عالمك وعن هالك كعضينا يا هذا هاي سوي يجوا إن أنا مرنبا أنا يري دونين وقران دونين وحيالا كوري من هي شرعية أمبا قدبدو يالا عيارها قبلة جمهورية سوماليلاند وحالي dadka binaadamka waxa laga yaabaa inuu habradaan maamul baa tahay inuu habradaan laakiin maanta ma aha tan tii loo habranayay ma aha gobolkaygana qarankana ceeb bay ku tahay maanta waxa ka dhacay sidaad Hargeysa cidda geysatayna waxaan halkan ka cadaynaynaa haddana isku duuyi gobolka Hawd waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo jananka ciidamada booliska labadaba iyaga ayaa keenay hawsha waxaan leeyahay war wasaaradda ciyaaraha waxa loo abuuray inay dib isdhexgal la sameeyo loo abuuray looma abuurin in qaranka lagu dumiyo looma abuurin waxaan leeyahay on mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya in haba yaraatee wax gobolka Hawd maanta waxa uu yaala waxa weeye in haba yaraatee hawsha meesha ka dhacday hawsheeda mar kastaba aananu yeeli doonin ogolaan doonin sharcina uu jiraayo waxa weeye waan haynaa adeegii waan haynaa waxa ku cad halkan in sidaa uu macallinku u sheegay ay caddahay qofku diidi karaa rifri u diidi karaa ma aha in lagu qasbo dee in waxay doonayaan lagu qasbo weliba waxaan aaminsanahay rifriga in wax ku hoos jiraa baan ugu aaminsanahay dadku dhow iska walbadii wasaaradda ciyaarahana waxaan leeyahay war laba un bay noqon doontaa wasaaradda ciyaaruhu gobolka Hawd inay wasaarad ka tirsan ay noqoto dee aniguna aan aqbalo inay tahay wasaaradda ciyaaraha waxaan leeyahay wasiirka mar labaad wasiir boos waxaan leeyahay waa sharciyadda hala maro oo wixii sharci u yaalay wasaaradda ciyaaraha guddida farsamada weliba waxaan leeyahay ilaahay nagu og yahay soo saara laakiin waxaan leeyahay anigu dee waxaan aaminsanahay haddaan hay in badan waan soo ciyaar jiray kubadda waxaan aaminsanahay in haba yaraatee ciyaar in laga hadlaba ma ahaba in la yidhaahdo cid baa
badisay amba cid baa kala badisay in laga hadlo maaha sharciga yaala waxa weeye cid haba yaraatee guulaysatay hadday daad maray noqotay iyo haddii gobolka u tahay haba yaraatee guulaystay ma jiro waxaanu leenahay un mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya un wasiirka ku codsanaya waxaan leeyahay hawshaa iyadaa oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiinaa Muuse Biixi waxaanu leenahay waanu haysanaa caddaynteedii cid laga bediyey haba yaraatee anigu anoo isku duwiyey waxaan aaminsanahay in cid haba yaraatee laga bediyey inay jirinba maanta waxay noqonaysaa in min 5 gool la kala dhaliyey haba yaraatee dee wixii la isku diiday laakiin waxaan mar labaad aan leeyahay hoon dee madaxweynaha noo sheegaya war ummadda ka hor imanaysa sharcigii duminaysa in iyaga la qabto maanta dee tallaabo laga qaado weeyaan shicibka taageeraha gobolka hawdna adeer dee umay dhimaneen in muxuu ahayey dee waxay arkayeen iyaga laftoodu dhibaatada iyo dhibka lagu hayo gobolkooda mar kastana aan dul qaadanaynay inta ciyaarta socotayna waa arkayseen kun jeer buu u siinayay maanta wallahi boqolkiiba boqol ilaahay alxamdulillah waxaan leeyahay iyadoo wadacasaan la siiyo gobolka hawd oo welibana loo badheeray oo ad og tihiin warbaahintiina inaad ka war haysaan dhibaatada halkaa ka dhacday waxaanu leenahay war noqon maayo garoonka istaadiga hargeysa noqon maayo dad tukarada noqon maayo waxaan u aragnayba ayaan inaan maanta laba ciidamada qaranka amba booliska ama madaxda qaranku maanta waxaan u arkayaba inay tukarada ma ahayd oo dee dagaal tukaro ka socda in ciidan loo dirayo ma arkay istaadiga hargeysa ma arkayn garoon dee ciyaartooy ku ciyaarayaan oo dee gobollo dee lagu xaqsooraya maan u arkay waxaanu leenahay wasaaradda yeeli mayno haddaan dhan gobolka hawd mana yeeli haddaan isku dugi gobolka hawd si sharci daraano inaan ku hadhno yeeli mayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعد صحافة هذه أدبر السلامية بعد السلام كل واحد كهذا يا إن لو قضى مصلحة قضى عن هذا يكشفوا ويا إن قضى بحوي إن قضى تغيير أشياء يعينك إن يقضى كائن عيارتي قلات كنا نقول عيمانتها يا عيارتي ده هراء إن يقولون قلات متفنني ونوجد بني إن ده كم الشوكة وسعرده إن وحوي إن عبد الشاعر دني كليلا إن وحوي ساك وحنا بني يشجع يمانتك ورسول الله رسول الله سلوي وعن تصنيع تنقلب بكبضان إن عيارته ده هذا وشبيه ونحاول لنا يشارك بدعته حدقية إن رسولها تيم بعضه اللي جوتشيو بحقولين كنتو كذا قاضي ودي إن وحوي وانو قريتها والدي إن وحوي إن سينو أركينا إن وحوي أرنتاسي ماتها وحوي دويدا مينا أرق إن كوبد رجورا أو هذا نفاربه قرصوري ودوا وحوي لامد سري يكير بوشري وحاو كوام رجورها إنه كوبد وقولوا صباحي مو أسمعين إن إسلا أرنتها نجوا أج وحوي وحنو كوغن يعني قرصورياشي إنه قال إنه وحوي نتيجة لكن سير بعد رجورها إنه قولوا صوت إنه ليسوا قرصورها عودوا عضينيو وحوي وين لقعتين وحوي قضية مع نبي لون صوت الصناعة هذا عبد الرشيد والسعد أبو عمري إن أنا وحوي أنا فارت مع نبي ترجسين وأنا نقول غني حوي ثانو حنورنا عبد الرشيد إنه السعد ولدونيو قبل كسوتش دو إدار مرير إنه دونيو كل كإنه وحوي عنده تاريخ الصغير إنت حسينا واحد صعبنا معها أنت كبدا عكتنا وحوي عيب النوت تكلم كهذا وحوي الوسير كي أرمى بداية وطن كا الوسير كي عياروبا يجو قرن كفرديا والسيار عبية وحوي إن لا ردعو dhalinyartii ay arkayaan in wada carsaas runtii taas waxaan u aragnaa in dee mas'uuliyadooda ay qabeen jeclaan badan ay ka muuqato saa loo dhaqayo dhalinyarta saynu arkaynaba waxa weeyaan tarabuunka oo fadhiya waxaa soo galay 100 askari ka badan inay dabada ka soo galeen
iyadoon rabshadi jirin aan dhibaato jirin tarabuunkaas uu sacab u samaynayo ka hor inagoo ogeyn dhibaatadii iyo waxa weeyaan dee iyo dayn meeshii da aad moodeysay dee meel dagaal ka socdo dayn la geliyey ood marka hore ogeyn ciyaartii laga kaxiyey inta meesha ay ciyaar kubadda cagta ka dhacayso aad moodeysay laba kooxood oo cali inay meesha iskugu imanayaan waxaasoo dhan waxa weeyaan hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa kubadda rigoora haddaan ku noqdo ciyaartii badan isla garsoorkaasi wuxuu kaadh huruuda ku siiyey golwadaha ayuu ku siiyey kaadh huruuda isaga oo weliba aan inta uu soo baxay golwadahaas aan usoo bixin oo boodboodaya ayuu kaadh huruuda ku siiyey waxa weeye maanta hadda waxaan arkaynaa in kubaddii in golwadihii kale naga soo horjeeday maanta uu sameeyo arrinta noocaasa weliba lagu abaalmarin waayo kaadh iska daaya haddana la idhaa waa waxa weeyaan kubadda waa la qabtay isagoo oo garsoorii kale calawadaana uu caddayn u ahaa aynu isaguna ka arkayno isaguna noo qirtay suu sawirka iyo waxa videogana ka arkaysa inuu leeyahay uu soo baxay waxaasoo dhan waxaan u aragnaa dee kubadda cagta waxa weeyaan cabdirashiid iyo wasiir boos in dee waxa weeyaan ay siyaasadeeyeen taasina wax loo dulqaadan karaya maaha sportska somalilandna waxa weeyaan dee waa waxda uu ku baabaayo garoonkana waxaan leenahay garoonkan halaga qabanay waxa weeyaan garoonkaa dee waxaa loogu talagalay in lagu laayo dhalinta ama gobolka waxa weeye dad ka soo jeeda waa qorshe waxa weeye laga midaysan waxaan u adkaysanna maaha natiijadaana waxaanu leenahay annagu mayna arag kubadda cagta mayna arag gobol 2 jeer loo qaldan xaysimaad ogeydeen oo si cad intay gool cad dhaliyeen haddana waxa weeyaan inta la yidhi garsoori saacad ogid waxa weeyaan garsoori wahayna waynu garanaynayo wax waras ku socda ma jiraan haddana maanta in qalad labaad gobolka loo galo waxay nooca weyn arkaynaa cabdirashiid gobolka haddii inuu soo riixo waxa weeyaan dee sportska dhexda ma hanayo waxaan cabdirashiid ka codsanayo wasiirka inay iscasilaan haddii kale inay si dhexdhexaada oo waxa weeyaan natiijada iyo nidaamka maanta fooshuxana meesha ka dhacay waxa weeyaan dhalinyar badan ay dhakhtarka u jiifto inay natiijada ay si cad ugu noqdaan waxay anagu uma dul qaadan karno inay yidhahdaan garsoori baanu ganaxnay sida caadada ahayd waxa weeyaan ay gobolkooda ku badbaadiyaan daad meel hore loogu badbaadiyey 3 dhibcood aan lahayn in garsooraan marka hore dan ka lahayn oo ingiriiska laga keenay oo ciyaarta loogu talagalay xaysimeeyo daad meel in la yidhi markii dambana isagii baanu ganaxnay ninaan waxaa danba ka lahayn waxaa jirta degan waxa weeyaan maanta uma dul qaadanayno inay yidhaahdaan garsoori baanu ganaxnay ninka kenyaanka ayaa yidhahdaa waanu ganaxnay wax loogu talagalay ahayd waxna loogu talagalay 3 cisho ninka ka cabaadayna cabdirashiid caddaymaan ku haynaa coda waxa weeyaan telefoonada ah inuu yidhi ma qof nin aan ninka haynin ma qabanayo inta kale garsooraan ayaan codsanay ibso garsoora ayaa dadka ciyaarahay 10 garsoore ka badan 10 garsoore kale uu noo diiday ninkaas marka waxa weeyaan ma asmacina anagu beritooda si dhaqanka u hayd inay yidhaahdaan waxaanu ganaxnay garsoorihii taa ma asmacino ciyaartii dib loo daawado gool baa laga diiday sababta goolkana looga diiday waxa weeyaan faarta waa lagu bushkaray waayey ciyaartooyada faarta dalbadeen laakiin garsoore waa laga diiday waxa weeyaan goolka waxa noo dhaliyay ninka madaxa la yidhaa gool cad buu ahaa waxa weeyaan sidii la wadaarkii qof waliba dee waxa weeye meel walba u yaalaa gobolkaa intaanu qaadanay haddana rigoor inaanu qaadano wax dee maaha aanu asmacayno waxaan leenahay ciyaarta beritoolana ma wax dee la asmacaya maaha iyadoo ciyaartii ka horeba waxa weeyaan dee dhibaatadeedii iyo aan la xalin waxaan asmacayno maaha qabta si kale ciyaartooyda markii ciyaartu socotay waxay gacanta u qaadeen garsooraha miyaa la oran karin qalalasa idinka bilaabay waxaweyaan horta kubadda cagta way ka dhacdaa garsoore qaanada taa iyagaa xaq u leh waana ka abaalmarinaya ciyaartooyga gacanta qaaday sharciga waanu hogaansanayna laakiin annagana waxa weeyaan in sharciga nala mariyo oo waxa weeyaan waxaan xaq u leh